sida laga fahmi karo qoraalla hore oo aan sameeyey anigu waxaan ku jiraa dadka taageersan in la wiiqo oo aad loo yareeyo awoodda dowlad goboleedyada Soomaaliya. waxaan qabaa in dowlad goboleedyadu ay caqabad ku yihiin dowladnimada iyo danaha Soomaaliya. dowlad goboleedyadu waxay haystaan awood aanay xaq u lahayn, mana doonayaan inay ka tanaasulaan. lagama maarmi doono in xoog looga qaado oo military ahaan loo farageliyo. dowlad goboleedyada waxaa loogu talagalay in lagu baahiyo awoodda iyo shaqada dowladda. sidoo kale waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo haddii dowladda dhexe ee Soomaaliya la soo baxdo awood xad dhaaf ah oo keligii talisnimo ah. taasina waa marka laga hadlayo gudaha oo waa arrin wanaagsan. hase ahaatee waxaa soo baxday mid negative oo ku saabsan in dowlad goboleedyadu ay noqdeen aalad ay adeegsadaan dowlado shisheeye oo dalkeena kale dana guracan ama la dagaalsan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Itoobiya, Imaaraadka iyo Kenya ayaa adeegsaday dowlad goboleedyada Soomaaliya si ay u cadaadiyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ama iyagoo doonaya inay xajistaan saameyntooda Soomaaliya. aniga oo sidaas iri haddana waxaan ogahay in arrintu ay leedahay dhinac qabiil oo tusaale ahaan Puntland iyo Jubbaland waxay doonayaan inay xakameeyaan Muqdisho oo noqotay meel aanay u sinayn dadka Soomaaliyeed ama yeelatay sumad reereed. siyaasiyiinta ka soo jeeda labadaas dowlad goboleed waxa ay sheegayaan inay leedahay halis siyaasadeed haddii ay awoodda ku wareejiyaan Muqdisho. markii aad si dhaba u eegto Muqdisho, dabcan waa meel ay yaalaan awood siyaasadeed iyo dhaqaale oo hal reer oo dabcan siyaasiyiinta reeraha kale ma aaminsana inay ku badbaadi karaan waaqica ka jira Muqdisho. tusaale waxa uu ah sidii qaawanayd ee loola dhaqmay Farmaajo. marka arrinta dowlad goboleedyadu waxa ay leedahay dhinacyo badan oo waxa ay ku xiran tahay duruuftii iyo waaqicii ka abuurmay Muqdisho tan iyo 1991. marka aan eegno arrinta Jubbaland, dad badan waxay u taageerayaan Axmed Madoobe sababo qabiil iyo cabsi ay ka qabaan Muqdisho. taasi waa ka duwaneyd xilligii uu Farmaajo doonayay in la wiiqo awoodda Jubbaland oo Kismaayo iyo Geda la geeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xilligaas ma jirin xasaasiyad qabiil oo weyn marka laga tago xurgufta labada reerood ee meesha ugu awoodda badan. laakiin haddii madaxweyne Xasan Sheikh isku dayo inuu sidaas yeelo, dad badan waxay arrinta u yeeli doonaan weji qabiil. duulaan ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku qaadaan Kismaayo waxa ay dad badan u arkayaan duulaankii Caydiid iyo UNC ee horaantii 90-meeyadii. waxaan ula jeedaa arrinta wiiqidda dowlad goboleedyada fallaagada ah Puntland iyo Jubbaland waxaa ku habboon madaxweyne ay isku hayb yihiin. sidoo kale waxay ku xiran tahay waaqica ka jira Muqdisho. in la wiiqo dowlad goboleedyada waa ajenda qaran oo wanaagsan, waxaana ku jirta danta Soomaaliya, laakiin waxay u baahan tahay arrimo badan iyo fahanka xaalado badan oo ku geedaaman. lama ogolaan karo dowlad goboleedyo u dhaqmaya sidii wadamo madax bannaan ama hoy u noqonaya saameynta iyo faragelinta dowlado shisheeye oo cadow ah.